waxaa maanta si rasmi ah uga furmay degmada Agabar shirka beelaha Sacad Muuse ee Hoodaale xafladda furitaanka shirka Hoodaale ee beelaha dega waqooyiga iyo galbeedka magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay 16 suldaan oo kamid ah salaadiinta beesha uqaal waxgarad qurbajoog ka timid daafaha dunida waxaana munaasabada shirka Hoodaale ka hadlay salaadiin iyo uqaashi maanta goobjoog ka ah shirkan dhamaanna waxa ay soo dhaweeyeen shirka laga furay deegaanka Agabar waxaana u mahadnaqeen dadweynaha ku dhaqan magaalada Agabar sida ay isku garab istaageen waxa laga hadlayaa waa Sacad Muuse siyaasadna laga ma hadlayo qofna lama diidano qofna lama rabo waxaynu ka hadlaynaa danteennii guud 60 sanadood ka hor baa inoogu dambeysay shiraynu iskugu nimaadno maanta waynu iskugu nimid Sacad Muuse had ya jeer waa la qaybiyaa shisheeyahaynu dhagahaynu fudurin had ya jeer shisheeyaha aad baynu dhagaysanaa nin walba dantiisa u ilaashaday danteena aynu ilaashano shirkaana walaalnimo aynu iskugu nimaadno aynu isdhageysano aan wax wada qabsano aan iskaashano aan ku tashano danteena guud diidigiya labood saqiir iyo kabiir reerka leeyahay Sacad Muuse qofkii ka dhashayba qalbi wanaagsan iyo taakuleen iyo talo wanaagsan baa laga doonay Soomaaliland saa loo sheegay calanka tawxiidku ku qoran yahayna waanu ilaalinaa jaarka iyo islaamka inta ilaahay wuxuu soo ka dareena waanu ilaalinaa waxaan u sheegaynaa beesha Sacad Muuse gudaheeda dabadba meel joogan qurba jooga ganacsatada aqoonyahanka waxgaradka dhammaantood in shirki maanta uu furan yahay oo maanta la furay waanu ku ducaynay mada Agabar waa ilaahay mahadi waa wax ilaahay lagu mahadiyo ووح إلهي لوجو حمد النقا وحنوجو باقينا بلوين تساعد موسى تبدي يجودها شركي هذا عليه اللي جس سادالين يمدر الشنطة بلاده ما أنت وحو فرمي سديد يا كي أغسطس وحاو كفر ما خير وحاو كل ما دونا خير بيش سعد موسى وحي كجت سر رسمي وغفر مي شروينه بيش سعد موسى ومدبضا soo maray marxalado badan oo kala duwan sida doonaan ha ahaadaan kuwa aan maanta halka laga sheegayn iyo qaar laga sheegayaba soo maray muddo badan qabanqaabadiisa socotay gudiyaha ka shaqeynayay gudidii maanta waxay ku soo intihootay muddadii loo qabtay inay ku soo dhameystirto agabkii madashii wixii looga baahnaa ee loo diray isla maalintii iyo saacadiina waxay ku soo wareejeen madax dhaqameedkii si uu hawshiisu u qabsado waradooda maqlayseen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin sidaas aanu dadweynaha u sheegaynaa haddaba muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa shirka beelaha Sacad Muuse si weyn hadalhayntiisa uga dhex socotay Somaliland taas oo laga dhursugay qaabka uu dhici doono shirka Hoodaale waxaana maanta shirku ku bilaabmay jawi aad u degan oo nabdoon waxaana la filayaa in maalmaha soo socda si habsami ah uga socda magaalada Agabar taas oo lagu soo gabagabayn doono عبد الشكور هيبي سمسة تي في مقالة Agabar